qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مركا لكسو دوادا مقالة تحنها أها يعني هل كان كسو باهن جرني كسو عبسنا مادة إنجليس كقاران جريد كسديدات inkastoo waqti dheer aan halka wax muuqaala ku soo daabicin laakiin halkoodii ayay ka sii soconayaan markii noogu dambeysay waxaan ku jirnay unitka saddexaad ee weather and environment marka kaas ayaa sii wadeynaa uma gudbeyno unitkan oo aan dhammaanin uma gudbi doono unitka xiga ee afraad muuqaalkan marka wuxuu ku saabsan yahay direct and indirect speech weliba waa introduction waa hordhac marka introduction of direct speech and indirect speech waa hordhaca hadalka toosan iyo hadalka dadban ee aan toosnayn indirect speech waxaa la mid ah oo la qaadan karaa reported speech marka haddii la dhaho indirect speech iyo haddii la dhaho reported speech labadoodaba waa isku mid waxay tilmaamayaan hadal dadban maadaama marka direct indirect speech aan ka hadlayno waa in la sheegaa amaba la yaqaanaa the definition of direct speech marka what is direct speech waa maxay direct speech direct speech is the actual words of the speaker are quoted as it is the actual words waa ereyada dhabta ah ama ereyada saxda ah of the speaker ee qofka hadlay are quoted oo loo soo xigto as it is sida ay tahay oo aan waxba laga bedelin marka ereyada speakerka uu ku hadlay oo aan wax lagu soo kordhinin ama wax laga jarin sidoo loo soo qaato ayaa waxaa la dhahaa direct speech the exact words ereyada saxda ah of the speaker ee qofka hadlay are included waxaa lagu dhex qoraa ama waxaa la geliyaa in inverted commas waxaa la dhahaa dabcan calaamadaha shaashada ka muuqda ee buluuga ah ayaa waxaa la dhahaa inverted commas marka exact words ereyada uu ku hadlay ama ereyada saxda ah ee speakerka uu ku hadlay meeshaas ayaa lagu dhex qoraa ama inverted commas ayaa lagu dhex qoraa waxaa ka hadlaynana waa direct speech kama hadlayno indirect speech for example haddii aan soo qaadano tusaale waxaan dhihi karnaa Muhammad said I am running Muhammad said Muhammad wuxuu dhahay I am running aniga waan cararayaa ama waan ordayaa aaway marka the exact words of Muhammad ereyada dhabta ay Muhammad uu ku hadlay aaway waa I am running dabcan qofka dhahay aniga miihi waa sida Muhammad uu dhahay waay marka Muhammad said I am running aniga waan cararayaa marka waa inaad taqaanaa aaway exact words of Muhammad marka waa I am running okay marka haddii marka qofka hadlaya la soo hormarsiiyo magaciisa iyo haddii la dib marsiiyo labadaba waa isku mid marka kan haddii aan Muhammad said gadaal marsiino maxay noqonaysaa waxaan qoraynaa the exact words of Muhammad waxay noqonaysaa I am running aniga waan cararayaa Muhammad said Muhammad sidaas dhahay marka meesha maxaa rabaa inaad ka geertid kaliya qofka la soo xigtay magaciisa haddii la rabo waa la hormarsiin karaa ama waa la dib marsiin karaa labadaba marka haddaa aragtid waa inaad ogaataa in labadooda ay yihiin direct speech hadal toos ah inuu yahay intaas marka waxaa ugu gudbaynaa direct speech wuxuu yahay sida loo qoro halkaas ka gudbaynaa markaan waxaa ugu gudbaynaa indirect speech what is indirect speech sidoo kale waxaa dhihi karnaa indirect speech waxaa kaloo dhihi karnaa reported speech labadaba isku mid waa hadal dadban indirect speech ama reported speech is speech waa hadal
which tells you oo kuu sheegaayo what someone said waxa qofka uu dhahay but does not use laakiin lama isticmaalayo the person's actual words erayada dhabta ah ee uu ku hadlay speakerka lama isticmaalayo qofkaas erayada uu isticmaalay lama isticmaalayo marka in kii hore cagsigiisa waay kii hore muxuu ahaa oo directing wuxuu ahaa qofka hadlay hadalkiisa siday tahay loo soo qaadanaa inverted commasna waa la gelinaa laakiin kan liduu ku yahay hadaladii uu qofka ku hadlay sidoo looma soo qaadanayo inverted commasna lama gelinayo marka indirect speech ama reported speech is a speech waa hadal which tells you oo kuu sheegaayo what someone said waxa qof uu dhahay but does not use laakiin lama isticmaalayo the person's actual words qofka erayada dhabta ah ee uu ku hadlay lama isticmaalayo for example waxaan dhahaynaa marka kii hore la soo qaadanaa bis Muhammad said I am running Muhammad said Muhammad wuxuu dhahay I am running aniga waan cararaya this is direct speech because the actual words of Muhammad waa la soo qaatay waxba lagama bedelin inverted commasna waa lagu dhex qoray marka kan maaha indirect ma waa direct speech hadiiba inverted commas aad aragtid in la soo qaadanayo speakerka hadalkiisa waxba laga bedelaynin marka waa inay yaqiinsataa waxa ay yihiin direct speech hadii markaan ka dhigno indirect speech waxay noqonaysaa Muhammad said Muhammad wuxuu dhahay dabcan waxa ku xigta comma iyo inverted commas comada iyo inverted commas ka booskooda waxaan ku bedelinaa that Muhammad said that Muhammad wuxuu dhahay qofka hadlayaa waa Muhammad marka booska Muhammad waxaan ku bedelinaa booska ay waxaan ku bedelinaa hiya ku bedelinaa because Muhammad is male Muhammad waa lab haduu yahay marka hiya ku bedelinaa isaga ka dhigaynaa Muhammad said that Muhammad wuxuu dhahay he isaga sidoo kale isbedelka la sameeyay kale wuxuu yahay this sentence is present continuous tense sentence ka waa present continuous tense because I am running waa present continuous tense present continuous tense loo bedelaa marka past continuous loo bedelaa marka indirect laga dhigaayo ama marka laga dhigaayo reported speech marka he hadii auxiliarygeeda ama helping verbkeeda was loo bedelay sheeg past continuous waxay noqonaysaa was iyo were si gaar ah he waxa ku xirbaysa was marka waxay noqonaysaa Muhammad said Muhammad wuxuu dhahay that he was running inuu isaga cararaay ama ordaay meesha maxaa ka arkaysaa meesha waxa ka arkaysaa the actual words of Muhammad in la bedelay ama sida aan loo sheegin this is indirect speech kana marka wuxuu yahay indirect speech ama reported speech labadaba waa isku mid sidoo kale waxa qayb weyn ka qaato direct in loo bedelo reported speech ama indirect speech ina xasuusan tahay oo aad taqaanid ruleska la maraayo iyo sharciyada la maraayo waxa kale oo muhiim ah direct indirect speech marka la isku bedelayo waa in qofku uu yaqaanaa tennisyada sida uu shaqeeyaan iyo xeerarkooda helping verbskooda waxa soo dhan marka waa in aad taqaanaa hadii kale way adkaanay in la isku bedelo ama ku adkaanaysa waxa jir marka waxa la hayo tennis changes in reported speech tennis changes waa isbedel tennis oo la sameeynayo in reported speech marka loo bedelayo reported speech iyo indirect speech labadaba waa isku mid marka hadii tenniska uu yahay present simple oo direct aad joogto waxa u bedelaysaa reported speech marka u bedelaysaa ama indirect marka u bedelayso past simple sidaas oo kale directga haduu yahay present continuous tense oo u bedelaysa reported speech ama indirect speech waxa tennisku isku bedelaa ama loo bedelaa past continuous hadii directga uu yahay present perfect reported speech ama indirect speech wuxuu noqonaa past perfect hadii sidaas oo kale uu yahay directgaaga past simple oo aad rabto inaad u bedeshid reported speech ama indirect speech tenniska wuxuu isku bedelaa past perfect okay hadii marka dabcan hadda saxda nooma jirto hadii laakiin past perfect ahaystid past perfect uu ahaana
will haddii uu yahay helping verbkaaga oo aad direct joogtid oo bedelayso indirect ama reported speech wuxuu isku bedelaa would. haddii can uu yahay directigaaga wuxuu isku bedelaa could. haddii directigaaga uu yahay may waxay isku bedelaysaa might. haddii directigaaga uu yahay must wuxuu isku bedelaa ama loo bedelaa had to. sidaas oo kale haddii directiga uu yahay have to waxaa loo bedelaa had to. marka sharciyadan waxaa dhahay si weyn uga qayb qaataan in laga shaqeeyo oo weliba si sax looga shaqeeyo isku bedelida direct iyo reported speech ama indirect speech. marka waan rajeynaa in maxaa dhahay waxyaabo fara badan uu kusoo xusuusiyey ama hadda aad baratay. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato channelka waxaa kaa dalbanaa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe dhahato. haddii hore aad subscribe u dhahdayna inaad muuqaalka like saarto, sharena garayso asxaab fara badan oo muuqaalka uu u gaaro. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hmm.